سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرة أي أمة الإسلام وحواجبه إن أكون بالله والنور القرآن الكريم مرة كبعد وحي هذا الأفرين دونا هدي لا يرادو وحنكو سو دوينيا إبراهيم عبد الحسن إنه نوفر القرآن الكريم فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. oo is sheegi doona hadalka ugu horeeya waxaan siinayaa nin aqoon-yahana oo maaragtay public administration educator maxamed cumar haaguf ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله. وما سنتهي محمد إسماعيل waxaan marka hore salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan sida quruxda badan loo soo abaabulay. waxaan jeclahay inaan horta salaantayda ku celiyo salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullah. salaan kadib waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo mar kale dhalinyaradii soo qaban qaabisay xafladan oo aan u arkay inay mudnaan u leedahay Soomaalida mana soo dhameero bay joogaan. hadday tahay wuxuu ka hadlayay taariikhiyan waxay Soomaalidu kala badan tahay iyo siday muhiim u tahay Soomaalidu inay firfircoonaanta iyo creativity-ga laga rabay ay la yimaadaan. anigu inta badan uma aragtaan shirarkan Soomaalidu ay macnaha ay dadka xaflada Afrika ka imaanaya ama la taageerayo. dabcan waan taageeraa waana jeclahay inay meel walba ay guul ka gaadhaan, laakiin kan shirkan wuxuu ahaa shir aan runtii ka baaqan karin oo aada muhiim u ahaa inaan taageero buuxda oo af iyo aadan aan siiyo cabdi cabdille oo u sharaxan Ward 9 of Minneapolis City. waxaan jeclahay inaan ka hadlo laba qodob oo mid yahay maxaa laynooga baahan yahay innaga bulshadeena guud. labaan u kala qaadaya qodobkaas. mid waxa weeyaan haddii aad degan tahay Ward 9 saddex qodob baa lagaa rabaa basically. haddii aadan deganayn laba qodob baa kuu soo hadhay oo lagaa rabaa. aan ku horeeya marka Ward 9 aadan deganayn. Ward 9 waxaan u malaynayaa waxay ka kooban tahay predominantly saddex community bay ka kooban tahay. waa Longfellow, Corcoran iyo Phillips qaybteeda badan iyo Borderhall Park oo qayb ka soo gasho. masaxane cabdo iyo Centralka afarta community bay ka kooban tahay. waa xaafad weyn oo aan ku badannahay. marka ruuxaan deganayn waxaa laga rabaa wuxuu yaqaanaa ugu yaraan 5 ruux ama Soomaaliya ama minority oo xaafadda degan inuu la xidhiiro oo gedeboraad aad dhahdo cabdi cabdille ruuxa ku sharaxan waa cabdi cabdille. marka November 5-teeda inuu ruuxaas u codeeyo cabdi cabdille. waxaan u malaynayaa ruuxaan xaafadda 5 ruux ka aqoonin inuusan jirin. waa taa waa qodobka koowaad laga rabo ruuxaan deganayn. midda labaad waxaa lagaa rabaa in aad support means wixii kale ah ruuxii iridaha garaacaya haddaad adigu iridaha garaaci karin wixii uu iridaha ku garaaci lahaa oo biyo ku cabbi lahaa inaad soo diyaariso. basically labada qodob baa ugu muhiimsan haddaadan deganayn Ward 9 of Minneapolis. haddaad degan tahay mid saddexaad baa kuu raacaysa in aad deriskaaga 10 ruux ka soo hesho iyo codkaaga 11 cadan leelo. waa ruuxa degan. I don't think inaad deriska dad isku fiican tihiin inay colays badan tahay inaad 11 ruux oo adigu ku jirto ay cabdi cabdille oo codaya oo taariikhda ka qayb galaan. waa maalinkaaynu dooranaynay historiyo badan baynu goobjoog u soo hayn. waxaa ka mid ah madaxweynaha maanta madaxdeenu ah markaynu dooranayna waad ogeyd sidaynu isugu yeedyeedhayna wiilasheena cabdi warsame haashim iyo cabdi cabdille markaynu dooranayna sidoo kale laynooga bahay.
labada qodob aan ka hadlay waxaan ku saddexaynayaa qodobka Cabdi Cabdulle oo walaalkay oo aqoon gaar u leeyahay oo aan rabo waa ay muhiim u tahay in isaga u doorano haddii aynu rabno outside of the box thinker he's the one very creative ruuxu bisil oo aqoonteedii iyo garashadeedii iyo garaadkeedu intaba ay ku idin yihiin marka ruuxan hore oo aqoonin oo barasho wanaagsan Cabdi Cabdulle waxaan dhihi lahaa codka aad la soo hadasheed ruux kala soo hadasho kuma khasaari doonto because I guarantee you that takale waxa weeyaan Minneapolis City Council-keedu wuxuu qabtaa waxaan rabaa inaan taa kusoo gabagabeeyo siriyada waddankan wuxuu leeyahay 3,000 oo county buu leeyahay 3,000 oo county ayuu leeyahay county-daas mid walba dhow siri baa ku dhex yaala Minnesota waa 87 counties county-ga ugu badan ee ugu tirada badan wuxuu ku yaalaa Hannibal siriga ugu tirada badan waxay ku taalaa Minneapolis weeyaan Minneapolis waxay ka kooban tahay 13 xaafadood marka basically cities-ka markii administration loo sameynayo 3 model bay inta badan raacaan مثالك وفعنا مركب والله بدل ما تعناها يا مثال في علينا Minneapolis waxay qaadatay inay horumariso badnaan in dadka ay doonaan ay midayso representative government weeyaan St. Paul waxay qaadatay effectiveness waxqabad weyn oo horeeya waayo waxay ku kala duwan yihiin labada mayor midka mayorka ee Minneapolis jooga isagoo keligii go'aan ma gaadho xaafad walba go'aankeeda waxaa gaadha wardkaas waxa laga soo doorto oo macnaheedu yahay wardnayn tiradeeda iyo waxa ku baxaya waxa la weydiin doonaa Cabdi Cabdulle so that's how powerful that position is and St. Paul hadda tagto haddii ward laga soo doorto St. Paul you're not as powerful as Minneapolis wardkeeda because modelka government-ga ay samaysteen baa wuxuu yahay inuu mayorku yahay strong mayoral city baa la yidhahdaa mayorka go-aanka iskale veto-ga isagaa iskale booliiska isagaa bedeli kara wixii change u sarraba isagaa samayn kara laakiin Minneapolis 13 ruux baa go-aan ka gaadha so that is why it's important inaan doorano Cabdi Cabdulle position aad muhiim ah weeyaan walaalayaal waxaan mar labaad idinku boorinayaa qofku wuxuu qabto unbuu yahay inaan ficil qabanno oo aynu tallaabo ka qaadno taageeradeena caawa inaan hal mid oo keliya ku xijino oo ah inaynu dadkeenu naqaanayo xaafadda deganaa aynu si kuurgarayno inuu codkoodu maalinkaa tirsamo ogow waxqabadkaagu ma dhammaystirna ilaa codka ruuxa taqaanay Cabdi Cabdulle loo xisaabiyo oo Haashim loo xisaabiyo oo Cabdi Warsame loo xisaabiyo waxaan u malaynayaa iyagana ixtiraam badan siinayaa Sadiiq iyo saaxiibkay Maxamuud oo raggii ahaa trailblazers bay ahaayeen nimankan raggii waxay pioneerskii u bilaabay Soomaalida inay sharaxdo I'm proud of you all of you waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waxaan u gudbaynaa speakerka labaad waa nin muxtarim ah waa wada garanaysaan waagii hore wuxuu ka bilaabay mayor inuu isu sharaxo waxaa la yidhi maaragtay haddii aad ilaahay baryayso weel weyn baa lagu baryaa marka taas 20 sano ka hor bay moogta marka waxaan u malaynayaa hadda hoogaa raggii wareer oo kale maan hayn oo waxaa weye city council iyo xaqiiqada loo soo noqdo malaynayaa hadda marka waxaan soo dhaweynayaa oon jeclahay inaad si fiican ila dhaweysaan waa nin mutacalim ah waa nin soo shaqeeyey waa siyaasi waa rugcadaa waa macallin waa aabe waa community activist waa waayo arag ila soo dhaweeya Maxamed Nuur Wardheere mar labaad inaad ugu celisaan ma jeclaan lahaa maadaama السلام عليكم فرحان وين بقيت هي عاوة إن كشاق الجرا الحفلة دم لو قلت هلا قلنا لو قلت هاجره مرشح عسير كونسل والناين عبد عبد الله
weliba aan ku arko murashaxa kale oo powerpoint ordaayo Hashim oo isagana dhinaca fadhiyo marka Hashim Yunus waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga sheego waxaa sida gaarka ah xafladan caawa u qiimeynayo caruurteedana waa keenay familygayga dhan waa soo kaxeeyay waa jooga sababtana wax kale ma ahane waxaa waaye anigoo og muhiimadda uu noo qaban karo Cabdi Cabdulla haddii uu City Council ka noqdo Ward 9 baa haddana taariikh gaar ah aniga isaga leenahay waxaan nasiib u yeeshay inkastoo ay da'da soo baxayso inaan lahaa macalinkiisii Washburn High School markuu dhiganay sidoo kale waxaan isagana macalinkiisii ahaa Hashim Yunus markii uu Edison High School dhigan jiray in macallin ay ardaydiisa ordayaan fadhuumayaan waana wixii aan ku rabay 2001 September 11 2001 markii aan meero carraayay qorshihii aan rabay inaan arko baa ii muuqda carruur Soomaali ah oo active ah oo maamulka ka qayb qaadato qaarkiin meela arkaan marayna already warqadaha ku qoray meelo badan oo aan ku endorse garaynayo ku taageerayo Cabdi Cabdulla iyo Yunus iyo Cabdi Warsame dad badan oo Soomaali murashaxiin sababta wax kale ma ahan waa wixii aan rabay qofku wuxuu rabay inuu gaaro Cabdi Cabdulla hadduu noqdo City Council waa hawshii aan 12 sano ka hor ku riyoonayo waan aqaanaa waa nin aqoon u leh shaqadaas oo yaaraga mar rabo inaan ku dheeraado waxaan idinka codsanayaa inaad si kal iyo laaba u taageertaan murashaxa Cabdi Cabdulla oo tartamayo City Council Ward 9 waxaan rabaa inaan wax ku daro kuna soo gabagabeeyo sidee u taageeri karnaa Cabdi Cabdulla waxaa aad ugu dheeraaday Maxamuud oo ka hadlay qof walba iyo wax uu qaban karo محمود أنا وحمد الله يا حافظ أن تجنها والناين عاو فلا يرسل قادنا يا أربعة درس كيجا أنا أكفره وأنا جرا يا لكن وحرام من الصوت ويقبل بنته ويبرف بنته وحدعي كرته ما ننسى دورشة نوفمبر فاين ورول كبر فيالو وقبول من ودعاي إلى هذا لكن حرام الصبح إن المسكحة كديار سن هاد كتر القش ما القبرنا تاد بردو شلي ولا عدي ميا عدي شلي هي هدي خود عدوا قف دارتنا تعجبته وأنا زوج جدا مالنتاس وأنا هاد سيبرنا بريسين لوكيشن ما راح عدي قف البو وأنا هذا سي أنا شفت ما أنت قلت مش ما شافك عدي نيسو هذا أنا هري سور ريجسترينين أيديا هذا أمور هذا بوست الوسط ربنا سيادة عديشنا المشهد تكنتهاي هذا اللي بدرين من صوته يقدم بسوي هاي ترتي سيمبل ريجستريشن ولو وقت يسمع ها قبلنا كانوا حاجات دول هاي من صوته سيمبل ريجستريشن هدي أنا هرب سور ريجسترينين مالنا دورشة دعيس نوفمبر قامت دورشة نفس كذا تجيسا لكن أنا وضعتها ID gaagi iyo warqadii ID khasab ma aha waana wada identifier utility bill kaaga utility bill ha warqadii korontada iyo biilashaadii waxa ay wada maya ID waxa wada anaga waan la dhimi karaa iska qaada ID gaagi marka maalinta qaado talaba saaxiibada iyo dariskaaga ka dhaadheer muhiimadda ugu muhiimsan waa intaas markii xilliga campaign hadda wuxuu marayaa gabaabsi waxa ka haran maraynayaa اسبوع ama 10 beri wax ka yar hadoo kale waxa way maalintii waxa kale oo iska rabaa nin walba sida aniga xaafadeeda ka sameeyay xaafado waxa jira qaadadkeen waxa deganaa sara iska buuxaan dad badan oo dadkeena sara isxilqaan dadkaas inaad la hadasho u gaarsiiso faayir gurigooda dhigto la hadasho marka nin walba oo si hagar la'aana u taageer hadda degantahay warnaan maarta xil gaar ah ku saar انت سكوزو غبغبينا يا راليغا هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتصنطي ولا هذا waxaan u yeerayaa
raggii dee rugcadaa waa in maaragtay la keena meesha magaca awowey ninka wataa wey Sadiq Warfaa بسم الله الرحمن الرحيم محمود اسماعيل هورت الشغل ولا يكسر قبتها وسط مدينة بسم الله الرحمن الرحيم آدي هذا وحقوق فرح سنة I think عبد الواني نصيب بدل مرة ديو رجع تريل بريزر كياكا وده جوجان ومحمود ورد يرد جوجا أنا كده جوجنا مركب حالنا وأكو شرفنا مركب حاوي الله سيري كانسل وجود داري وموسيقى دون سنة ياسين إسرائيل وحياتها شرف آدي أدوين وحاوي وحن كجرنا وحاوي involving ومعناها ولكن محمود أقويانك I was really impressed سيدو وشرحي the 3000 county iyo mataqaana managerial system ka oo mataqaana mayor ka St Paul iyo weak mayor ka strong city council ka mataqaana Minneapolis that was really a good job you did macnaha waa arinta loo baahan yahay in marka qofka fahmo shaqada taala iyo sidii mataqaana 13 ward Minneapolis city council ku power ku leeyahay marka shaqadii iyo wixii la dhihi lahaa waa la soo yiri laakiin waxay ka codsanayaan waxa weeye dadka caawa halkaan isugu yimid horta qof walbo walaalkeen u baahan kaliya cod u baahan yahay laakiin wuxuu kale u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay financial election ku badanaa qofka meel ma gaaro without financial support marka waxaan dhihi lahaa hadda halkaan qof walba oo jooga inuu ishilqaamo oo really waxaad awoodi kartid aad u qortid city councilka committee uu leeyahay oo halkaas aadaya lacagtaas wuu ku dagaalamayaa 70 hourka blitzka mataqaana oo 3 maalin ugu dambeeya dhaqaale aad u fara badan ayuu u baahan yahay qofka badanaa ugu resource-ga badan ayaa election-ka dadku waa arin run qofba qofku ka dhaqaale badan yahay finish line qofkaas ka hor dambeeya marka waxaan aad iyo aad ka codsan lahaa waxay tahay horta in ninka xagga dhaqaalaha hadaad warka Minneapolis oo dhan iyo dadka deegaanka oo dhan waa sii kartaa I think mataqaana individual contribution-ka oo city council-ka ilaa $300 ay loo golyahay marka mataqaana waxaan dhihi lahaa waxa loo waxaad awoodin horta xagga dhaqaalaha ninka walaalkeena caawa bixin adigoo fadlan wax isku qorin oo walaalkii xagga dhaqaalaha ka taageerin marka waxaan taasaan ka codsan lahaa midda labaad dhalinyarada meeshan joogta caawa I think private na arintan ugu wada hadalnay important-ga ay leedahay mataqaana in election-ka maalintaas in dadka la soo saaro waxaan kaloo codsanayaa waxa beri sabti ah city council city hall waa furan yahay early morning tomorrow waa furan yahay marka qofkii absentee qofkii maalintaas aan codeyn karin oo kale mataqaana hadda ayaa sii tagi kartiin marka odayaasha iyo dadka mataqaana maalintaas baraf ayaa jiri kara I'm sure mataqaana Abdul transportation ayaa diyaara telefonkooda halkaas ku qoran yahay waxaan ka codsan lahaa waxay tahay oo really in dadka aan maalintaas election-ka aan aadi karin hadda berri hala bilaabo maalmo Monday Tuesday ilaa 4 o'clock furan yihiin berrina waa furan yahay ahoo sabtiga waa jeegreeyay in dadka la guro oo hadda la sii geeyo si mataqaana early boarding-kaas area mataqaana walaalkii taabka maanta u geyso arrintaas kulli waan wada taalaa ahoo in arrintan naga loo ka codsanaya ilaahay بدنا كوسو قتمة واحد هاي أنا هو تاجر سنة هاي وأنا دورس قلني أنا عبد الله آلي أب بشرف نوت هاي وعن كل شيء واحد توها ماشي وناك وترتمعه وإلكشن دي اللي competitive ونمي هذا ونقرني قبلنا متقنا ماشي دوتي السجا معناها إن آد ما متقنا تقول السعودة جالس كيس آد في عيني هرنتي معناها لي لو حنا آد كان عاوش شيء واحد إن ولكن ريلي لو قرب استاجو وعبد الله ونقضوا سيري كانسل كوناين وأنا تاجر سنة هنا أنت أصدق عاود لا لو بانية ولكن هلا تاجر عندي لا دلائل. مثلا قصو مثل هاشم يونس وأشرح عن بارك بول والسندي اللي حفظها كان كله ودمانتي أنا كعصنا هنا أول ما تقولكين هاشم يونس السندي اللي حفظها كان كله هاي السجع Minneapolis ودن هذا دقنته. بارك بورك متقانا ووعدين كرتا ولكن إسنا متقانا قوبت لقول نستو إنا كدر إنه قوبت نستو وحياوي قبطوا حكم ذا عاو حفلة عبد الله عسكري لكن يقول معي متقانا هاشم يونس إنا حواجي سكوت ورنو مركب وحنا واحد هاي
marka waxaan hubaa goobaha nasashada waxa way community centerada hadday noqdaan Brian Coyle oo kale Philips community inta community meelaha ku marna fadlan marka walaalayaal hala garab istaago walaalkeen Cabdi waa dooran karnaa Hashim waa dooran karnaa dhamaantii sharaxan kulli waxaan rajaynayaa Soomaaliya guul assalaamu calaykum hadda waxaan jeclahay waxaa caawa nala jooga musharax nin dhalinyar laakiin way araga oo u tartamaya barxadaha Minneapolis sida la sheegayna waa wada dooran karaa dhammaanteen it doesn't matter meelashaad degan tahay waxaad ila soo dhaweysaan walaalkeen Hashim Yonis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عقب ما سنتين ما دامت كغير بشان حفلة آديات مهمة أن آدو فرح سنة هاي إن كغير قالوا ولالك عبد الله حفلة قرح البدن ودقي آديات مهمة هاي هبين كني إنه هبين تاريخه أو تاريخ مهم وياهي عن اللوبين ولا الذين رجي سهل بمكهر وترتبي جوين كدقة مجالة أما استيت كوترتبي دول كان نوها جاشي أما وضدا توصل نوها جاشي أديان يوم هالسنين هدي أين يجوا أين جوين كان أي وردين أنا كمان الورد لهين جوين كان يمكن أنا أعرف وردينه So عبد الله congratulations عبد الله ورتا إن بدنا اسمه قرنني لكن دوام برتي وحيالها عبد الله قلبها عن روينا الكشرو وحيالها كمذا وحويا ويل سوماليا ومالت يجوه رئيسين أنا كي إنه يهي روح الصومال نمو أردين لكن إنه رمو دقمة السجالات ومد جوكتا أما الصومال أنا قطع أما أجنبي أنا أقول وديا كويحي إنه عاويو لكن أنا أجانو إنه وردين أما تقانا الصومالي مو وردين ورديو دقمة السجالات أما برشيد دقمة السجالات سدوا عاولها so عبد الله congratulations so عبد الله إيو أنا جو هاشم يونسا waxaan isku dayaynaa in aan taariikh dhisno tusaale ahaan marka Mareykanka la fiiriyo waa muhiim inaan taariikhdeena aan qorano dadkii naga soo horeeyay ama Irish aan noqdaan ama Talyaaniga aan noqdaan ama Chinese Japanese aan noqdaan ama Italians aan noqdaan taariikhdooda iyaga gacanta ku qoray taariikhdooda waxay ku qaadatay ilaa iyo boqolaal sano ku qaadatay taariikhdooda gacanta inay ku qoraan laakiin caawa waxaan taaganahay anakoo Soomaaliya qurba jooga aan wadankan Mareykanka aan joogno dhowr iyo 20 sano on ku faraxsanahay dhalinyaro Soomaaliya oo u ordaysa jigooyin kala duwan taasoo kamida degmada sagaalaad Cabdi loo wardaya iyo anigoo Hashim Younisa oo wiilkii Soomaaliya ugu horeeyay oo u tartamaya paartiyaasha so marka doorashadani waa doorasho muhiim weeyaan haddii aad xasuusatiin markii la dooranayay madaxweynaha Mareykanka markii la dooranayay Barack Obama waxaan joogay Africa tacliim baan ka dhiganayay African joogay study of Brad baan sameynayay waa la yaabaysaa Mareykanka iska daayay dadku sidii ay ugu ololeynayeen inuu noqdo nin madow oo ka yimid geeska Africa siduu madaxweyne Mareykanka ugu noqon lahaa so maanta waxaan taaganahay Minneapolis waa taariikhdaas oo kale weeyaan taariikhdan aan sameynayno caawa meesha kagama duwano taariikhdii President Obama loo sameynayay wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee madaxweyne u tartama oo madow oo effectively
وكهرية ضد مدو وما تقارن مدحوينه وترتمى لكن it was a historic moment Minneapolis waxaan taaganahay mar taariikh sanad taariikha oo u tartamayaan dhalinyaro Soomaaliyeed laakiin hal ogaado dhalinyaradu ordayso Soomaali kaliya ma aha waa dhalinyaro mutacalimiina Cabdulle dugsiga sare tusaale ahaan aniga waxaan Mareykanka imid anigoo 10 sano jira dugsiga hoose xagan ka qalin jabiyay dugsiga sare xagan ka qalin jabiyay jaamacad xagan ka aaday masterkayga xagan ka qaatay PhD student University of Minnesota banka ahay so ma aha kaliya Soomaalinimo inaan u tartamayno waxaan u tartamaynaa Mareykan ahaan baan u tartamaynaa which means malidani bas tahay Soomaha so waa dadku inay fahmaan waxaan u ordayno ma aha kaliya Soomaali baan aho degmada lixaad Soomaali baa u badan degmada sagaalaad Soomaali baa u badan qaybta aan u ordayno Soomaali baa noo codaysa ma aha Cabdulle Spanish ka u codaynaya Cabdulle madowga u codaynaya cadaanka u codaynaya the same thing so marka fikradda aan iska saarno la leeyahay Soomaali baa tahay Soomaali baa ku codaynaysa no we qualify to do the job so waxaan isku dayayaa imika inaan af Ingiriis ku hadlo maadaama ay dad kale nala joogaan is that okay good so my name is Hashim Yonis and I'm one of the candidates for Minneapolis Park Board and Recreation so I'm very excited to be here tonight to share the same stage with my brother Abdulle who's also running for City Council in Ward 9 where I strongly believe that he has a bigger chance of winning if the community stands behind him on November 1st or November 5th. And in the meantime, if you are planning to do early voting on before November 5th, just let me give you a brief background about my own background. I was born in Somalia. I lived in Ethiopia. We lived in Kenya. You know, this is just a typical an immigrant who left Somalia as a young boy. My family and I left Somalia in 1988, which means I was 1 year old when we left Somalia. And we lived as an immigrant, you know, throughout East Africa. We came to the United States. We started here in the middle school. We went to high school here. We went to college here. I finished my master's. I'm a PhD candidate at the University of Minnesota. And I'm running for this position because I'm really passionate about helping our communities. I'm running as a citywide, which means if you live anywhere in Minneapolis, you can vote. So in summary, I want to give you a brief background of my qualification and the reason why I'm running for this position, just to give you a clear understanding, because there are other individuals who are also running but have no agenda. For the last 5 months, we have raised more money than our opponents. We have distributed more than 10,000 literatures throughout the city of Minneapolis. So that itself is a history. The mayoral candidates don't even distribute more than 10,000 literatures throughout the city of Minneapolis. We have more flyers than any of our opponents, city council including, mayoral candidates including. So this is a very serious movement. And we're not just running, we're trying to make a history. History in the sense that, this is something that I always use. And one of my favorite presidents of all time was, John F. Kennedy. And one of the things that he always says that was, people do not have equal talents. People do not have equal talents, but all individuals should be given the equal opportunity to develop their talents. So what I'm saying here tonight is that Abdulle and Hashim Yonis and the other Somali candidates who are running for these key positions need to be given the equal opportunity to develop their talents. So that's what I'm asking. Thank you very much. In summary, in conclusion, what I would like to advertise here is that Sunday, which is the day after tomorrow, we have an event here taking place, almost the same event as this one. We're trying to inform our communities the importance of the election. We are also trying to fundraise. My brother also talked about, especially in this moment, the person with the financial support gets to the finish line.
If we want Abdi Abdullah to be very successful tonight, I'm asking every single one of you, please, before you leave, donate. If we want him to be very successful, we need to donate. Not just talk about it, do it. We need to financially support him. Also, Sunday, when you come here, we are asking you to bring your ideas and also come and support us financially, because this itself is history in the making. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.